بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما أمة الصوماليات ملك استكجوا سوينتين دنيا التافهة إذا يدعى ده وحنا السلام يسهل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ما أنت واحد رمينا كهذا صدق قضب أما فر قضب وقصة ليسان أرمها الصومالي ده ككوبا ذي وحويا وحركة لوك يستني كلا يرحضوا أن تبعثر أن عادي أتنور دليل لنا أرنت تبعثر أن كذب يكون هاي جمهورية الصوماليلاند أن dadkan iska caqliga maangaabka ahi inay maxay tahay dadka xidhan maaha way dhaninkani mud oo dhan oo Soomaaliyeed wucaya hawiyada aan lahayd hadii lahayd daarad reerkooda diyaarad hadii aan lahayd iyo cid kale Soomaaliyeed ninka wanayn iska haya ninka wanayn maxay tahay iska aflagad badan marka micnaha markuu horgeysay yimi aniga gudub iyo qardaraynoot inaynu ku dhex jirtilo nimaan u dhalan qarankan ama jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ku soo dhaweeyno muxbo maxay tahay iyo maxay tahay maagaam sare isla markaana inuu ka raacno waxaanu nahay Somaliland darin ama nahay shacabka Somaliland inaynu ka raacno dawlad wanaagnimada iyo dulqaadnimada inaynu ka raacno waxa tabacasar inaynu jirdila maahayn waxa moodaa Somaliland inay si siqaso la moodaa in waqtigeedii uu dhacay oo imka Somaliland expire growso waxa waxaad ka qaranaysaa dictatornimadii siyaad bari lagu diiday imka waxa kusoo foodse maxay tahay waxay kusoo food leedahay Somaliland oo wax ka qaranaysa dictatornimada imka Somaliland ka hilaaday iyo wax ka qaranaysa hab qaybsiga saameed ama hab qaybsimeedka Somaliland oo beelo badan aan u dhameystirin marka waxa ka qaranaysa Somaliland inay soo expire growso deedkeeduna u dhacayo oo maxay tahay dadweynaha sano waxay dhisaysay inay dib u dimi karto ay suurtagal marka labaad waxa weeyaan dadkan leeyahay Soomaaliya tegina Muqdisho tegina imka saaxiibka Cabdibal Muuse Caldoon wuxuu tagay Muqdisho caasimada waddanka ummadda Soomaaliyeed aanu qarmayo micnaha ah wiilka Muqdisho taga in maxay tahay ama ninka reer waqooyiga Muqdisho taga in la xidho xabsiga la dhigo wayantar waa maanta wadagoodeen Soomaaliya ku 977 waddanka la yiraahdo Itoobiya dagaal la qalay Itoobiya cadowgeeni buu ahaa wadogtii Soomaaliyeed maanta sidee u noqotay Itoobiya walaalaheen walaalaha yaga xamarna dhiigoodana dhibaya iyo ubadkooda wax kasta la laynayo iyo kacaankoodan iyo odayaashoodan wax qaradkoodan duqaydooda haweenkooda aqoonyahankooda madaxdooda la laynaya anaguna dhibaysa hadaan shicibka waqooyiga markaas ma aaminsanin wax la yiraahdo Itoobiya ama anagu manihin dad Ethiopian aaminsan waxa la aaminsanay magaca Soomaalinimo waxa la aaminsanahay magaca Somaliland darimo hadii Somaliland darimo aan ku noolahay waqooyiga Somaliland darimo magaca labaad oo magaca Soomaalinimo uma Soomaaliyeed baanunay walaalaha iyaga Soomaaliyeed wana dhibaysa hadii wax walba loo geysto marka maaha marraba qof Soomaaliyeed socodkooda in la kala xaqiyo waxa lagu deeganaa maamulka Somaliland in dadka ka xaqiyaan oo maxay tahay dadka shicibka Soomaaliyeed isku duulduulaya in la kala joojino ilaado xaqad meel helay xamar waxa ka timid bilay hargey marka waxa weeyaan waayantar waayade dadku waa qaraabo waa walaalo wal marka lama kala maarmo jidka waa jirkayga wax kamid weeyaan waa waslad naga mid ah shicibka ku nool bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya marka waxaan aaminsanahay manhabka ah inuu Somaliland konsultaaka ku dhawaaqnay balse manhabka Soomaalinimo na weyn aaminsan Soomaalinimo dhiigkoodana dhibaya musabbixi madaxweynaha kala taqaaqay ariga wuxuu kala ahaa dhiigoodan ina dhibaya ummadda Soomaaliyeed waa rutiisa wax la yiraahdo Soomaalinimo la isku khilaafay uma Soomaaliyeed beenunay Somaliland beenunay hadii Somaliland hab system wax ku socon weydo waa lagu kala dareeriyaa marka Soomaalimo kala maaranto cadowgeena Soomaaliya waa Itoobiya waa cadowgeena Soomaaliya Itoobiya marka labadan qaadi waxa weeyaan saddexaad qaadi waxa weeyaan Cabdibal Sheekh Muuse Caldoon waxa la arkay yiri waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka jamciyadda isna magaalada Burco waxa leeyahay adeer nin daaweyn baa tahay nin odaya baa tahay waxaan maleynayaa maalintii dagaalada dhacayeen laga xoreynayay waddankan dawladii Maxamed Siyaad Barre loo naxariistay inaanad u maleynay ragii inaanad hayn fiiska hor dagaal ku jiray waxa waxaan ka qaranayaa waxa la Soomaaliya ku maamulay ka fulayay markuu dagaalka galayo cuntada ayuu yiraahdaa geesiga cuntada soo guriga cuntada dagaalka galaan waxaan tagayaa kaamka cuntada soo marka wax maleenay ragani wararkii ninkan leh gudub xanka jamciyadda Sanbaan adeer hadii ragii bariga lix iyo Cabdikaadir Koosar maanta noolaan ahaayeen ما هذا الشيء والله
haddii maxay cad noolaan lahaayeen inaad gudoomiye ku-xigeen jamciiyad SNM-na sheegateen inaanad odhaneen malmalanaya SNM baa waxayba marka ayaan tire kugu tay nusqaan bay kugu tay inaad nin suxufi Soomaaliyeed nin suxufi wadaniyada Soomaaliyeed ku jirto inaad tahay nin suxufi oo wadaniyada Soomaaliyeed ku jirto inaad ku tiraahdo umu dhalay Soomaaliland waa ayaan daro waa nusqaan waxaan u arkaa adigu nin baan ku arkaa wax ma karata waan ku arkaa waxa malaynaya inaad kamid tahay basaasiinta Ethiopia ee ku jira gudaha Soomaaliland malaynaya inaad kamid tahay marka ninka waxaan uga digayaa odaga waxaan uga digayaa inuu xaal siiyo Cabdimaalig waa wuxuu kaga dhacay meel buu kaga dhacay wuxuu kaga dhacay meel isirkiis meel kaga dhacay waxaan maleynayaa odagaas waxaan maleynayaa inuu qof wax la yiri Soomaalidu waxa tiraahdaa qofkan imika waxaan aan isku tuusanay ayaa qof kale ku tuhmaa wala qof la ku sheegay waxaan maleynayaa odagan isaga Soomaaliland u dhalan oo Malay Ethiopia naga yimi marka adiga bal hal ugu shay baadho oday adiga hal ugu shay baadho laba tariga bal hal ugu mariyo Cabdimaalig Sacdanooni lama taabtana muqaddis wadanida Soomaaliyeed weeyaan Soomaali waxaan rajeeyaa guul iyo qabanimo Soomaali ha noolaato